بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام يا صومالي ميل كستي شوغان دل iyo dibed inta sanaha jecel aad iyo aad baan u salaamaya maasha allah salaanka bacdi waxaan doonayaa inaan wax yar ka hadlo caawa sheekadii sheekh Kiyaawi inaan ka hadlo horta ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryayaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala ummadda Soomaaliyeed meel kastay joogaanba in ilaahay subxaanahu wa tacaala isu sakhiro in ilaahay bagooda bacad isku mariyo inay qabyaaladan iyo qurunkan iyo balaayadan ilaahay qalbigooda ka masaxo run ahaantii wadaadkaasi ajar ayuu shaqaystay maasha allah ummadda Soomaaliyeed ayuu u fidinayay halkaa uga soo tegay faamiligiisii caruurtiisii inuu wanaag dhex dhigo oo ay iscafiyaan ayuu bartaa uga soo dhaqaaqay muqdisho ka soo degay maxaa dhacay intaa kadib wadaadku maxamaan sameynay maya maxamaan faafinay maya horta bini aadan ajar ma karooba ilaahay agtiisa ayuu ka helay ajarkiisa ilaahay agtiisa ayuu ka helaya bini aadan abaal ma karababa qof le Soomaali iscafiya war qofkii walaalkii wax ka qaatay oo qofka kale cafi warkii maxay tahay dhibaato loo geystay oo dhibaatada iskeel walaalka cafi kii hanti laga qaaday oo hantidaada iskeel walaalka cafi hal iscafiyo qofka kale cafiyo wax laga soo saaraa meeshaas oo wadaadka lagu maxay tahay lagu yiraahdo maxay tahay lagu cambaaraya mabay olimba iscafiya buu lahaa iscafiya maxaa ka wanaagsan wax allaale wax la yilisu sheego oo cafis ka wanaagsan ma jiro diinta islaamka iyo maxay tahay wadaadkii wanaaga faafinayay siyaasadda hadii baa loo rogay hadii siyaasad loo rogay ka waran diin iyo siyaasad maxay iska galeen meedihii baa inta lagu waashay waxaan ku ruuxi la doono la iska akhriya qof kastaaba meeshu doono ka miisaya war ilaahay ka baqa maaha wali wada dhalinyaro ah meediyaha waxa u badan dad waaweyn waxa sameynayaan waa dad waaweyn odayaal waaweyn wanaaga waaweyn oo qof alla qofkii afka kala qaada wax ka sheegaya bal sheekhaas muxuu geystay iyo niman danley ah oo iyagu dabxiitinay danahooda gaarka raadinayo oo wadamo shay u shaqeeya cidna wax ma geysan wax alla wuxuu sameeyay dhibaato oo cid geystay ma jirto sheekhaas faamiligiisii caruurtiisa buu ka soo dhaqaaqay wuxuu sir ummadda Soomaaliyeed wanaag iyo cafis dhexdhig maasha allah malaayiin qof baa soo baxay malaayiin baa soo baxay aad mahadsan yihiin Soomaalida inta wanaaga jecel ee doonaysa Soomaalinimada ee halka ayaguna cafiskii wadaadku ugu baaqay qaatay alxamdulillah qof walba qofka kale cafi ilaa aan ummadda islaamid qof kasta cafi iyo masaaxu naga yahay qofka maanta nagu yiraahdo ummadda ilaahay cafi qof ajarna la rabaa qof wanaagna la rabaa laakiin ka sharka nooga sheekeeya ama sharka maxay tahay yiraahdo shar noo keena qof sharna la rabaa sheekhaas horta ilaahay ay agtiisa ay ajarkiisa iyo xasanaadkiisa ka helaya bini aadan maba ka rabo laakiin si dadka maxay tahay meediyaha fadhiyo ee wixii doonaa iskaga hadlayo sheekh Kiyaawi meedin cambaarayn sheekh Kiyaawi kalaamka ilaahay buu ku hadlayay diinta islaamka ayuu ku hadlayay wixii ilaahay subxaanahu wa tacaala hadalkii ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo xadiiskii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayuu faafinayay ayuu ummadda ilaahay u sheegayay ayuu ummadda ilaahay lahaa isku cafiya wax dhibaato kama hadlayn siyaasad kama hadlayn propaganda kale kama hadlayn maxaa lagu cambaaray maxaa sheekh halkii la soo dhaweyn lahaa oo maxay tiri loo fidin lahaa roogog lahaa oo la soo dhaweyn lahaa ayaaba waxaa lagu stress iyo madax xanuun ayaa lagu beeray wadaadkii sheekadiisi dhinac kale iyo wixii meesha lagu yaqaaniba xagana loo wareeji anu kuma hadlayo dadka siyaasiyiinta ee maxay tahay danaystayaasha ma ka hadlaayo oo danahooda gaarka raadinaya ee waxay doonaan kusoo qorayay maxay tahay WhatsApp maxay tahay
miidiyaha websaydada waxay doona kusoo qoray kuwaa kamaba hadlaayo because waa dad caano oo la yaqaano waxay yihiin baaba iska yarba waxaa kuu soo haray inta miidiyaha inta maxay tinay miidiyaha intii soo galeen in lifeka ay soo galeen ee naagaha ee nimanka ah ee wadaadka islaamiyad haystay horta wadaadka waxba maydin yeelin idinkaa xus yeelo idinkaana miisaankiina aakhiro waxaad ku buuxsateen shar ayaad ku buuxsateen waad garateen soo maaha wadaadka waxbaa tarteen oo wuxuuna ahayn baad ku sheegteen ajar baad u shaqayseen maasha allah ajar wuu u baahan yahay iyo xasanaad because ilaa halkaas uu soo socday ubadkiisa caruurtiisa iyo heerkiisa intuu ka yimi ayuu inuu walaalihiis cafis u fidi iyo oo yidhahdo iscafiya oo ilaahay dartii u yidhahdo isku cafiya isagoo wax alla wuxuu ka rabaa jirinin ayuu halkaa usoo maray marka wax ajar u shaqeeya oo ajarkiiba uu isagu rabay inuu shaqaysto mid kasii badan u shaqeeya wuu u baahan yahay adigu miisaanka ayaad shar ka buuxsatay oo miisaankaagii ayaad shar ku cuslaysatay isagana ajar baad u shaqaysay ilaahay agtiisana ajar ayuu ka helayaa intaasoo malaayiin oo muslimiin oo heshiisiina ajar buu ka helayaa khayrka u faafinaya ajar buu ka helayaa hadalka aad leedahay adigu aad iska leedahay ee aan kuu xisaabsanayn ee aad isaga maxay tani aad wax kaga sheegaysid ee xasaradda ah ee dembiga ah ee wuxuuna hayn aad ku sheegtay eed kalaamka ilahay ku cambaarasayna ajar buu ka helayaa adiguna dembigaaga iyo xasaradaada ilaahay agtiisa ayaad ka helaysaa maanta waad nooshahay berrina waad dhiman doontaa adduunka waxaa kuugu jecel faamaligaaga iyo ubadkaaga wax yar kabacdi inta lagu dhaqdhaqayo kabacdi kadib waxaa lagugu yeeri doonaa markay naftuba kaa baxdo meydka war meydka hala dedejiyo qabriga halaynaga geeyo cid kuu raacaysaa ma jirto iyaa ku raacaya oo keliya camalkaaga markaasa waxaa lixeed adduunka ka tagtay laguu soo ururinayaa ka dabageeya ma dafri karaysid maaha waxaad dafri karaysid maaha waxaa odhan karaysid ma odhan sidaad maxaad yeeli maxaad samayni hadda waad nooshahay oo wada hadlay hadhow inaad saacad ka bacdi ama 30 daqiiqo ka bacdi inaad gaadhisiin kari war ma haysid adduunyada maxaad kaga tagtay maxaad shaqaysatay ummadda laleeyahay cafiya laleeyahay miyaad ka xun tahay yaa subxaan allah waqaadir subxaan allah waqaadir ilaahay ummadda soomaaliyeed bogooda barcadaysu mariyo niman danaystayaal ah oo calashooda u shaqaystayaal ah oo intay caruurahoodii caalamka kala geysteen ayaa caruuro kale iyo agoomo kale iyo maato kale iyo dumar maxaan tiri nimankoodii la dilay iyo kuwa asay u saaran tahay iyo kuwa dhibaataysan ayay korkooda ku dheelayaan korkooday ku dheelayaan kuwoodina caalamkay jiraan ka sheekee taasi ma xaq ba xaq maaha waa xaq darro dhalinyaradii soomaaliyeed intay tiri xaddi la ekayd 50% waxay ku dhamaadeen tahriib beerkii kaliya baa lagala baxay jeelashay ku ureen weligood kamay hadlinin dowladda ka horreeyay weligood kamay hadlinin weligood hal maxay tihiin qof meel kamay soo qaadinin dowladda waxay qabatay sacabada ku qarin karmaysaa shiikha yimaada waxbaa laga sheegayaa dowladdii waxbaa laga sheegayaa dad baan dowladnimoba rabinba ee waxay rabaan weligoodba soomaaliya inay saa u qasnaato haddaba mid baan idiin sheegayaa dhallinyaroy ninka intuu ubadkiisii geystay adduunka adiga kuu soo shaqo tegay ama qofka dumarka ee adiga kuu soo shaqo tagtay ee xildhibaanada isku sheegaysa ee xumaha faafinaysa ee iyadan waxba lagu samaynin miidiyaha barooranaysa ee doonaysa inay qabiil dadkaas kaga hor keento dani kuguma jirto ugu baasaboor bay sidataa maanta marka maxay tiri xamar dhibaato ka dhacdo ama dagaal ka dhaco oo ay qabiil ummadda ilaah iskaga hor keenaan baasaboorkay ku dhaafayaan halkay aadaysa ameerikay ka timi ameerikay aadaysa ama iskandinaafiyakay ka timi iskandinaafiyakay aadaysa yaa kusoo hadhay meesha adiga iyo maatadaadii caruurtaadii adiga iyo maatadaadii iyo caruurtaadii ayaa kusoo hadhay ama faamiligaagii iyo adigaa kusoo hadhay haye aduunbaa bmk beebuhu kugu dhacaya
ummadii kuusoo shaqo tagtay markay qabiil iskaga ka hor keentay markay dowladdaadii kugu dirtay markay culimadii kugu dirtay markay kii diinta faafinaya kugu dirtay markay kii wanaagga ku waday rabay soomaalinimo inay isugu keeno maxay tiri soomaaliya ay kaa hor keeneen ee bambo iyo maxay tiri qarax kugu xidheen ayay kaa dhoofayaan ubadkoodina walba banaanka ugu maqnaayeen soomaaliya xisaabtama soomaaliya xisaabtama danayste yuu idinku danaysan danayste iga talo dhalinyaradani way dhamaatay keliya beerki ayaa lagala baxay cid ka hadasha may lahayn tahriib iyo bad bay ku dhamaadeen cid ka hadasha ma laha jeelashay maxay tini caalamka maxay ahaa ay ka buuxaan maalin kasta waa la leynaya cid ka hadashay ma laha ilaa dowladdan ay markii ay soo gurtay mooyaane dowladdan soo gurtay marka ma dhibaatay qax baa rabtaan wadankiina aamina oo dowladdiina aamina maanta maasha allah dowlad baynu haysanaa dowlad bayna soo iftiimaysaa caalamkiina insha allahu tacaala la jaan qaadi doona culimadeenna iyo dowladeenna soomaaliya inta wanaagga jecelo inoo xiftiya oo sidaa u garab socda ilaahayna wax maxay tihiin ajri xasanaadka ka siiyo intii malaayiinkii soomaalida ahaa ee halkaa isugu soo baxay ee qofba qofka kale walaalkiisa cafiyey sheekhii lahaa iscafiyana ee u wacdiyeyna ilaahay subxaana watacaala ajri xasanaadka ka siiyo inta xumaha iyo sharka iyo balaayada la wareegasana ilaahay subxaana watacaala ummadda ilaahay rabbi subxaana watacaala ha ka qabto ummadda islaameed ummadda soomaaliyeed ilaahay